السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسوداء أقوى كال أنت هلكم حكبلا بنا عشرة كسابسن ويربريس كبر في صومالي. قارها وحنبران طولنا سيد الله ديسو نقشدة ويربريسكا يوجودهان حركة لو أجاسمه وحنكبلا بنا ميل فاروقة وحفل لكجرين ثم هانتان إلى أن قارنو إن ديسنو ويب سايت كشقينية ويربريس إن شاء الله. مركو حلقة إنه توديسيد ومح ويربريس. ويربريس وبرنامج لو ديسو ويب سايت ثم هانتان lacag lahaan ama open sources waxa la asaasay 2003 hadda oo la joogo 2020 waxa adeegsada boqolkiiba 38 website adduunka taas marka saad uga qiyaas qaato qiyaas la sameeyay bishii July 2020 waxa la ogaaday inay jiraan 1.3 bilyan oo website oo shaqeynayay marka wuxuu ka yahay boqolkiiba 38 halka waxa ka qiyaas qaadan kartaa marka in aad loo adeegsado WordPress-ka ma fahantiin waxaad kaloo ka garan kartaa qiyaas ay samaysay digital.com waxay ku ogaatay in bil kasta ay lagu daabaco 70 milyan oo qoraal macnaha dadka adeegsada inay daabacaan 70 milyan oo qoraal iyo 77 milyan oo jawaabood ama faallo ma fahantiin waxaa lagu tarjumay ilaa 204 luqadood luqadda Soomaaliga waxaa la tarjumay oo kaliya boqolkiiba 33 baa ku tarjuman yahay ma fahantiin sida halka uga jeedin marka haddaan aragnay intaas soo maartay qiyaastii la sameeyay iyo adeegsada waxa adeegsada shirkado ganacsi oo nooc kasta ah waxa adeegsada shakhsiyaad ama shacabaha ama madax noqdeen waxa adeegsada dawlado ama wasaarado waxa adeegsada hay'ado iyo ururo iyo wixii la mid ah ma fahantiin marka ugu horeysa waxa muhiim ah inaad fahamtid WordPress waxa uu ka kooban yahay waxa loo yaqaan xudunta WordPress oo ah waxa uu ku socdo hadda marka WordPress gudihiisa gashay waxa arkaysaa faylal uu ku shaqeeyo kuwaas inta badan waxa laga bedelo ma fahantiin waxa loo yaqaan ubuucda ama core wuxuu ku shaqeynaya waa matoorkii gaariga oo kale uu ku shaqeynayo ma fahantiin marka hadda arna ubuucdi waxa jira wax loo yaqaan naqshada WordPress-ka ama waxa loo yaqaan theme marka waxa weeye waa faylal la isku agaasimay oo lagu xiriyay khaanada loo yaqaan themes oo kamid ah ubuucda WordPress-ka marka khaanada u fiirso themes bay macnaha waxa ku dhex jirta WordPress-ka waxa la gelinayaa marka khaanad loogu macdaray naqshadii la sameeyay waxa ka kooban yahay marka faylasha noocan ah magarat faylasha soo sameyn doonta insha Allah qayb kamid ah ama badankooda fahanti marka naqshadaas ama theme-kaas wuxuu ku shaqeeyaa waxa loo yaqaan PHP HTML CSS iyo JavaScript marka waxa soo baxaya faylka noocan ah oo soo baxaya magarat faylasha uu ku shaqeeyaa fahanti waa dhisi doonta insha Allah fayl noocaas waxa laakiin muhiim inaad ogaatid inaad u baahan tahay inaad wax ka taqaan HTML iyo CSS shardi kuma aha inaad taqaanid PHP iyo JavaScript fahanti waad baran doontaa inta uga baahan tahay casharada ku dhex baran doontaa insha Allah marka laakiin waa inaad taqaanaa HTML iyo CSS waxa jira casharo hore u daabacay oo kamid ah HTML iyo CSS loo adeegsado marka fiiri youtube.com/aqoonkaal insha Allah ma fahanti waxa kale muhiim inaad garanaysid sida website gudihiisa marka gashid aad flash ugu qoran lahayd dhinaca marka shaashada laga hago dhinacna waa wajiga dadku arkayaan ma fahanti marka waxaan soo doonaa insha Allah naqshad dadku arkayaan oo qurux badan insha Allah ma fahanti waxa kale muhiim inaad taqaanid laba qaybood oo WordPress-ku yahay waxa weeyaan wordpress.com iyo wordpress.org .com marka waxa weeye waxa ka samaysan kartaa magacaaga sida aqoonkaal.wordpress.com dhinaca kale oo kan kale oo loo yaqaan WordPress-ka waa kan aan dhisayno insha Allah ma fahanti xeerarkiisa ku dhisayno waxa laga samaysan karaa marka website magacaaga ah ama shirkadaada sida aqoonkaal.com ku leedahay ma fahanti waxa kale muhiim inaad taqaanid in WordPress u baahan yahay waxa loo yaqaan serverka marka waa maxay waa computer ay ku rakiban yihiin barnaamijyo gaar ah sida Apache, MySQL iyo PHP waxa marka laga yaabaa inaad isweydiisid sida computerka uga dhigaa server aad buu saaran tahay waxa loo yaqaan waxa jira local server waxa la adeegsadaa barnaamijyo ay kamid yihiin WAM server iyo local by Flywheel marka inna waxa adeegsan doonaa insha Allah kan baan u adeegsanayaa kuwa adeegsan kartaa ka rabtid marka ka rabtid adeegsan insha Allah ma fahanti waa isku mid uun waxa muhiim ah in computerka qayb kamid ah ka dhigtid server ma fahanti marka sida looga dhigo waxa arkaysaa sida uu sameeyay waxa kale u baahan tahay aaladaha qorista xeerarka oo loo yaqaan code editor waxa kamid ah tusaale ahaan Notepad++, PHP Storm, Sublime Text, VS Code iyo Atom marka anigu waxaan adeegsanayaa insha Allah Atom ka rabta adigu la soo deg waa isku mid waxa rabtaa wax xeer ku qorato adigu ma fahanti marka hadda diyaar ma tahay casharada waxaan ugu talagalay inaad ka faa'iidaysid sidaa daraadeed guul si aad uga gaartid soo diyaarso qalin iyo buug aad ku qaadato note ama xusuus qor si marka cashar kasta waxaad ka faa'iiday aad kugu qornaato meel kugu qornaato insha Allah ma fahanti hadda marka waxaan bilaabaynaa insha Allah saan u soo degno
local by flywheel insha allah waxaa gelaysaa webkaas hoosna ku qoraya linkiga webka markaa geshid waxaa riixdaa meesha ku qoran tahay download waxaan soo degaynaa barnaamijka aan computerka ka dhigaynay server ma fahamtay riix meesha ay ku qoran tahay platform waxaad ka doorataa windows baan adeegsanaya windows waan dooranayaa markaa email ka qortid waxaa riixdaa markaa get it now halkaa butoonka riix insha allah ma fahamtay markaa hadda barnaamijkii computerka soo dhexgelaya marka meesha ku save garaysa baan riixi doonaa insha allah si aan ugu rakibno computerka insha allah xawaaraha ugu soo degayo waxay ku xiran tahay xawaaraha computerka iyo khadka aad adeegsanaysid marka u dul qaado xoogaa insha allah ma fahamtay marka riix meesha kusoo dhamaagaraysay next install markaa ku dhifo install marka diyaar buu ku yahay marka waxaad tiraahdaa run finish marka wuxuu ku weydiinayaa marka waxaad qortaa magaca website-kaaga qor tusaale waxaan leenahay aqoonkaal kad waxaa leedahay markaas continue waxaa u samaysaa marka username magaca arto u samayso insha allah marka waa local weeye internet kuma jiro ma fahanta marka magaca arto u samaysanaysa waad ku gelaysaa dhow ma fahanta barnaamijka waxaan u doortay sababtoo kuwa kaleeto aan soo arkaynay sida maanba waxa weeyaan wordpress gaar buu ka yahay kuwa laakiin wordpress waa la socdaa horaa ka rakibaysaa ma fahanti marka waxaan wara admin tusaale ahaan admin lama qoro insha allah markaad internet gelinaysa laakiin hadda waad tijaabo weeye password noo samayso kadibna waxaad tiraahdaa add site halkaa riix marka waxaa ku rakibmaya website-kii ma fahanti aad samaynaysay marka waxaad riixdaa meesha ku qoranta admin saa u aragtid maaragtay gudaha qaybta laga hago wordpresska ma fahanti hadduu kugu rakibaya computerkaaga marka riix kadib wuxuu ku weydiinayaa passwordkii aad gashatay login waa kaa marka website-kii hadda computerkaaga waxaa diyaar kuwa wordpress aad isticmaali kartid aad ku tababaran kartid xeerarka aan baranayna aad ku qori kartid insha allah ma fahanti marka diyaar buu ku yahay hadda waxa ugu horeysaa samaynaysa waxa weeye waxa ku qortaa dhowr qoraal magarata ku qor si marka aan aduu adeegsano qoraaladaas ma fahanti marka waxaa laga qoraa post halka riix kan iska xir waxa ku qorta ciwaanka marka qoraalkii qor qoraalkii marka qortid waxaad tiraa markaas publish qoraal baa qortay ku noqo markaa shaashadii kore aan taabo qoraal labaad baan qorinaa insha allah saddex qoraal baan qorinaa hadhow markaan dhisayno aan qoraal haysano maaragta shaashadiina ku jira publish qoraal saddexaad qor add new post publish marka aan eegno marka si kusoo baxay qoraalkeenu marka website-keenu waxaa ku gelaysaa magaca ula baxday oo la socoto dhow local ma fahanti marka qoraalada warraba kuwaas soo jeedid naqshadda marka hadda saas kusoo baxaysa soo maaha innaga marka waxaan samaynaa naqshada qurux badan oo waxaan samaynaa marka naqshadda halka kasoo baxaysa weeye naqshadda xagga laga bedeli karaa marka waana taqaanaa waxaa gelaysaa website-kaaga qaybtii laga hagayay shaashadda imo waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay anagana waxaa ku jira meel khaas oo la yiraahdo themes soo xusitid marka waa kana themes halkaa riix hadda waxaa inoo jooga 2020 waxaan ku bedelaynaa tan tusaale ahaan tan ku bedelaynaa tan active leh dir marka website-kii refresh saan kusoo baxay ma jida muuqaal cusub la soo baxay marka muuqaalka annaga samaynaa waa kaas weeye halkaa kasoo baxaya fahanti marka halkaasaan naqshadana imaanaysaa tusaale ahaan meeshaan ku bedelaynaa kana ku bedelayna naqshadana markaa dhiso qurux badan waan arki doonaa sida loo dhiso insha allah ma fahanti haddaa xusid waxaa kaloo niri waxaa u baahan tahay wax loo yiraahdo waxaa u baahan tahay waxa loo yaqaano editor markaan waxaan isticmaalaa waxa la yiraahdo atom ma fahanti halkaa kasoo rogada atom ratid haddii kale waxaa soo rogtaa notepad plus plus ama sublime text ama php storm ama vs code kaarta soo rogo ma fahanti waxaa muhiimada inaad haysatid code wax ku qoran karto
tusaale markaan waxaan adeegsanayaa atomka ma fahanti waa kan atomka insha Allah ma fahanti marka adigu ka rabto soo rogo waxaa muhiim ah inaad soo rogatid mid adigu aad garanaysid sida u isticmaashid ma fahanti markaad ka faraxalatid hawsha markaad website-kaagii aad dhisaysid ama qaybta marka maalinta aad dhisaysid marka waxaad xiri kartaa barnaamijkii waxa weeye local flywheel ayaa iska xiri kartaa ma fahanti waxaad leedahay marka halkaa may ku qorantay stop site baa halkaas riixaysaa stop baa leedahay marka uu damaya marka ma shaqeynaa webka ma fahanti hadhow markaad soo noqotid markaad daratid waxaad leedahay start site baa leedahay halkaas riixaysaa si kugu starmo oo marka kugu shaqeeyo WordPress-ki waxaan rajeynayaa inaad fahamtay qaybtaas hadda ilaa hadda soo baranay waxaan ugu dhiirigelinayaa inaad u diyaargarowdid casharada soo socda si marka aad bilowno aad marka ula qabsatid insha Allah ma fahanti hadda intaad soo diyaarso waxaad soo diyaarsanaysaa marka waxa weeye server inaad computerka ka dhigtid iyo editor baad soo diyaarsanaysaa aad ku qoratid xeerarka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday insha Allah waa Maxamed Cali iyo aqoon kaal wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh